barnaamijkan hadda caawa qabanaysa waxaa la yidhahdaa barnaamijka arrimaha bulshadana waa waxyaabaha u baahan in wariyaasha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay focuska saaraan oo si fiican looga hadlo marka hore horta aad ayaan kugu mahadcelinayaa maadaama aad barnaamijkan qabato waana dhawaah وهجاج waxaan rabaa inaan marka hore bal dadkana daawanaya dib u yara celino fikirkan goormo kugu dhashay maxaa kugu dhaliyay adiga marka hore wad maadsan tahay Cabdi Xafiid fikirkan horta waa fikir soo jiitamay oo muddo dheer qalbigay ka guuxayay sababta uga guuxayeen anigu waxaan ahay wariye ka howlgala wadankan Finland TV-ga qaranka wadankan Finland 19 sano muddo ah ayaan ka shaqeynayay waxaan ka soo shaqeeyay wadamo tiro badan oo dunida maaragtay kamid ah marka waxaad arkaysaa markaad adduunyada wareegayso oo socoto 30 sano aad qurbaha degan tahay waxyaabo waxaad is weydiinaysaa runtii aad wadanka uga qaldan dhaqanka ka qaldan maaragtay oo su'aalo badan aad is weydiinaysaa su'aalaha markaad is weydiinaya waxay tahay meel kastoon tago haddaan Pakistan tago haddaan Afghanistan tago haddaan Vietnam tago Chile tago wadamadaas markaad tagayso dadku waxay ku jeedaan inaad tahay qof maaragtay muslim ah Soomaali ah madow ah Afrikaan ah laakiin meesha kaliya oo markaad tagto qabiilku uu muhiim yahay oo ama wax lagu caawinaya ama wax lagu siinaya ama lagu cusuriyeynaya waa wadankeeyo hooyo oo aan ka imid marka way cuntam weyso waxaan is iri war waxyaabaha markii hore aan fahmay ayay ahayd waxyaabaha ka qaldan haddana waxaan maaragtay isweydiinay sidee maaragtay looga gudbi karaa oo qabyaaladan wadankeeni daalatay looga gudbi karaa sidaad og tahayba muddo 7 sano ayaan ka shaqeynayay wadanka oo wariyaasha tababarayay Soomaaliyeed oo ilaa iyo wadanka oo dhan aan ku wareegay markaad wariyaashii la sheekaysto dhalinyarada la sheekaysto kala hadasho arrinkan maxaa qabyaalada noogu wacan maxaanse ka samayn karnaa cafisku waxyaabaha ugu muhiimsan ee maaragtay laga dhawaajiyay ayuu ahaa marka sidaa darteed ayaa waxaan isniray amayba wariyaashu sida adigoo kale Cabdi Xafiid oo ayba arrimaha positive-ka oo iscafinta ah oo soo dhawaashaha ah oo nabadda ah ka wanaagsan tahay inay ka hadlaan ayna buunbuuniyaan markii loo fiiriyo siyaasadda iyo qaraxa iyo waxyaabaha dhibka badan ee maalin kasta laga hadlo ama fiican tahay marka saas horta cabisku ku bilaabnay sababta lagu bilaabana wax kale ma ahane waa in wariyaashii lagu dhiirigeliyo in ay sameeyaan ay u oleeyaan barnaamijkaas oo dadkii afkoodii iyo qalbigoodii ay ku soo celceliyaan barnaamijkan fikirkan iscafinta iyo isu imaashaha taas ayaa keentay inaan maaragtay bilaawno anigoo muddo iga guuxisay iyo markaan wadankii ku laabto hooyo dhalinyaro badan oo wariyaal oo runtii arrinkaas aad u soo dhaweeyay وهجاج marka inta ilaa ay haatan waxa soo qabateen oo halkaas aad ka soo bilowdeen xagee ayay wax idin marayaan waa su'aal aad u wanaagsan horta anigu waxaan is leeyahay ulajeedkii markii hore aan u sameynay barnaamijkan qaybtiisa ugu weyneed waa ka gaarnay qaybta ugu weynna waxay ahayd inaan abuurno dhaqan aan laga wada hadli jirin oo ah in qofku markii dadku isu yimaadaan cafiskiiba laga sheekaysto in la iscafi karo laga sheekaysto wadadii loo mari lahaa in laga sheekaysto in dadkii ay horta afkoodii ku soo noqnoqoto ayaan horta ulajeedka kow aan ka lahayn ayuu ahaa sida aad la socotana sida aan u bilaabnay 4 sano ka hor kadib waxaad arkaysay in ummadii Soomaaliyeed ay u noqotay culture ay afkooda ku soo celceliyaan waad arkaysay madaxdii markay isugu imaanaysay Puntland in madaxdii oo dhan maaragtay oo la dooranayay Nicolas Dani la dooranayay inay macal madaxweynayaashii ay ka hadlayeen cafiska in la iscafiyo oo maaragtay cafis la soo fidiyo annaga waxyaabaha aan doonayno waa waxyaabaha noocaas oo dadkii inay ku dhiiradaan hadday culamo yihiin hadday dhalinyaro yihiin hadday odayaal yihiin hadday siyaasiyiin yihiin in mid walbaaba fikirkaas intuu asagoo qaado garbaha saarto oo markaas ama asagoo campaign ha ku galo ama maaragtay si kaleba in ereygaas horta dadkii uu ku faafo taas waa ka gaarnay midda marka aan u baahannahay marka oo aan sameynay oo aan doonaynay inaan sameyno waxay tahay waxyaabaha hadda aan soo qabanay waxaa ka mid ah inaanan keliya hal iscafiyo aanan maaragta abuurin oo aan sameyno story telling wax la yiraahdo oo luqadaha qalaad lagu yiraahdo barnaamijyada macnaha qofka ka hadlaya iscafinta wiil cafinaya gabar cafinaysa waarid cafinaya shakhsi isu cafinaya si dadkii isugu daydaan
waana tahay oo journalistana waa tahay meediana way ku jirtaa waad og tahay annaga shaqadeenu waxay tahay inaan abuurno isku dayasho inaan abuurno wanaag abuurno si qofkii kale ugu daydo wiil maantay wiil kale cafinaya markii wiil kale dhalinyaraha arko inuu isaguna ku daydo sidaas waayo ulajeedka aan u samaynayno taa qaybtaas markaan xagga ku joojino midda kaloo muhiimka ah oo daxafiido inaan ka dhawaajiyo aan rabo oo runtii ugu weyn waxyaabaha igu kalifayba inaan barnaamijkan bilaabo waxaan leenahay dhaqan duq ah oo aad u weyn oo dheer oo xun oo ka mid tahay faquuqa inaan ummad Soomaaliyeed magacayo u bixino inaan faquuqno inaan niraano anaa ka laandheeraysan aniga ka macnaha waxyaabahaas aad og tahay inaan taas waliyo halka ka yara dhex galo faquuqaas iyo midabta kooridaas ama iscunsuriyeentaas wax yar baan dib ugu soo noqon qaybaha dambe inaan ku falanqeyno inaan ka hor dhacno marnaba laakiin waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed u sheego khadka telefoonka uu furan yahay ayna su'aal ka qayb qaadan karaan ra'yigooda soo gudbin karaan sidii la isku cafin lahaa iyo sidii cafis loo sameyn lahaa cid walba ayuu furan yahay laakiin waxaan ka codsanaynaa inaad telefoonada meel degan oo qaylo iyo sawaxan lahayn aad naga soo garaacdaan halo salaam calaykum calaykum walaalow kor u hadal adoo mahadsan salaamu calaykum cabdi xafid calaykum salaam walaal soo dhowow magacaa waa cali taako ya cali taako wardhigle aadan ku soo dhaweynaa cali taako soo dhawow waa maqlaysay wariye weli cafisku waa biyo kama dhimcaan iyo in la iscafiyo dhibaatadii dhacday laga buskoodo laga boogeedo aad fahmaysa aan kari ku margadanagaas booga dhageysho in la sameeyaa loo baahan yahay buu ku leeyahay maxaad kaaga baxay oo aad isleedahay ood ku biirin kartaa horta waxaan ku biiri karaa aniga in liscafiyo waa shay wanaagsan oo wadankan meeshuu gaarayo ummadan meeshay wada gaarto wax maanta mustaqbala oo macnaha qof walba wuxuu leeyahay hamiyuu leeyahay madax walba la magacaaban waxay xaq u leeyihin inay ka fakeraan sidai reerkooda uga fakerayaan inay uga fakeraan mustaqbalka dalka iyo jiilka soo koraya dhaxal looga tagaa ma garan waxaana jeclaanahay aniga macnaha iscafintu waa wax fiican laakiin halka mas'alo oo neesataa waxay tahay inaanu qofkii annaga aan rabno inuuna hogaamino meelow siyaasadda ka soo galay iyo hogaankii uusa jirin hayo codka kor yar qaad mar kale adoo raalli walaalow halo wada inuuna hogaamiyaha qofkii markaa siyaasiga oo la rabana aan loo helaynin meelow siyaasadii ka soo galo qofkii markii siyaasadii ku fariisto oo islahayna dadku waa ugu roonaa doonaa asaa wax isku wadi karana ay si kala dhilqayso masalada naasataa marka cabdixafiido waxay tahay hal xabo inaanan aniga maanta barnaamijkan arrimaha bulshada adiga wado oo aad soo bilowday oo maanta haddaad dan kale ka yeelato qofka ku bedelo oosan ku dhehaynin barnaamijkan waxaa hore usoo wadi jira cabdixafiid maantana anaa ku wareegay saan waay ma la ogolo sababtoo tahay qofna qof ma ogolo waa xaasidnimo ku wada jirto guud ahaan ummadda Soomaaliyeed khaasatan siyaasiyiinta ma garan marka waxaa leedahay waa dadan ayagu wax isku ogoleen annaga waxaan nahay dad aan waxba isku ogoleen maantay wanaag haba yaraato qofka hal shay oo wanaaga sameeya cabdixafiid oo dadnimo yar iyo fakar oo ku jiro oo la isdhihi kara maanta ummadda meel u bixi karaa waxaa hubaale inuusan 30 maalin sii noolaan si lagu dilaba waxaa ka horeyso dadkoo mid kuna midaysan jidkii ilaahay oo raalli ka yahay sunnadiina iyo diinteena annagoo ku midaysan oo ilaahay dartiisa isku jecel oo wacyigelin badan la sameeyo oo wixii dan ugu jirto la ogaado madaxweyne shaqo waxaan ku mala ra'iisul wasaare ku mala wasiirna ku mala maamulka ugu hooseeyo oo dad u baahan yihiin in wax laga qabtaa waxay tahay waagaag cali taako wardhigley waa kuu mahad celinayaa waqti badan aan ku siiyey mahadsanid walaal guuleyso waagaag weli khadku noogu jiraa qof kale fursad aan siiyo waa isku dhex wadaynaa su'aalaha weli waxaad su'aalaha rabtaa inaad weydiisaan weli weydan maqlayaa toos u weydiiyey insha allahu tacaala ra'yigiina soo gudbiyey halo waagaag daawadahaas oo ka gudbaynaa haddaan dib ugu noqdo halo عليكم السلام ولا سو دhow waa dhawaay walaal magacayga asad bal dhaha waxaan ka soo wacayaa Kampala Uganda aad baan ku soo dhaweynayaa wali waa maqlaysi wariyaha waa salaamaya adigana waa ku salaamaya aniga ra'yi ahaan waxaan aamsanahay inuu shacabka Soomaaliya dadka Soomaalida
cafis baa dhex yaal oo wax dagaal dhex yaal hadeer ma aragno hawshaan waxa wadaan anigu dareensanahay in dadka siyaasiyiinta iyo dadka wax ku cuna mataqaanaa dhibaatada Soomaaliya inay tahay waxaana loo baahan yahay dadka siyaasiyiinta inay isku calool furnaadaan sida shacabka oo kale oo hawshaan ay ka gudbaan barnaamijyada ay wadaan ay ka gudbaan muhiimaddu waxa weeye dadka shacabka wax dhibo dhex yaal ma jirto gobolada markaa aadidoo kale waa mataqaanaa dadku way isku furan yihiin dad walaalaa oo isa soo dhaweynaya oo ehel iyo qaraabo iyo xigta intaba aaweeye laakiin waa dadka siyaasadda ah waxyaalaha dhibaatada meesha ka jirto waa gartay aad u mahadsantahay khayr Allah ku siiyo aan hal kala telefoon ma qaadanaa dabadna wali baan ku noqonaynaa hadii aad waa bal inaan fursad badan in siinaa ku hadashaan noo yara dulqaata line ku xiga halo السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ما سنت هذه بعد تي في يونيفرسال. مقعة ولا؟ مقعة وحلير هذا بروفيسور بازي علي. قلت بروفيسور كوريا هذا الوضع مات. هذا ما سنت هنيو أرمها نو كذا أرمها ما أركي مدوين بدن أن كهولنا. واقر. إذا لو سمعنا إسعافين. intaan taariikhda aan ka akhriyay waxaan arkay qofkii ugu horeeyay caalamka iscaafin sameeya inuu ahaa Yusuf alayhi salaam kadibna waxaan arkay taariikhda intaan ka akhriyay Maxamed alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wasallam inuu caafin sameeyay qofka saddexaad ee adduunka ka arkay waqtigan iminka hadda xaaladan ku noolnahay ama qarnigan ku noolnahay waxaan ka arkay Mandela marka iscafinta halo professor waa ku maqlaa si daran doori hadalkaaga wado iscafinta haddii aan xaaladeena oo maaragtay wadanka uu ku sugan yahay aan ku soo noqdo wadanka wuxuu soo maray dagaal sokeeye qabiil ah 10 sanadood haddana wuxuu ku jiraa dagaal dhaqaale marka cafin ma imaan kartaa ayadoo dagaal uu socdo marka waxaan u malaynayaa arrintan inay aad iyo aad ay muhiim u tahay laakiin inay dhacdo ay adag tahay maadaama aad sida aad arkaysid ay meesha ka socdaan وهاجاك بروفيسور هذا ما سنتا بروفيسور قوليسو وهاجاك دي waxaan ugu noqonayaa wali hadii ilaahay ilaado wali waa maqlaysaa muwaadiniinta Soomaaliyeed waxay leeyihiin annagu hadaan ay shacab Soomaaliyeed isma dagaalsanin dirir iyo dhiig daatana nagama dhaxeeyo siyaasiyiinta ayaa dadka isku diraya fikirkaas ma qabtaa adigu fikirkaas waa qabaa laakiin ulajeedka aan barnaamijkan u abuurnay waxa waaye waxaad moodaa inaysan sidaas ahayn haddii aan fiirino hadeerba annaga Soomaali haddaan nahay dad waxaan ahay qabaa'il u kala dega sidaan ognahaana waagii hore waxaa lagu dagaalami jiray ceelasha biyaha lagu dagaalami jiray waxaa lagu dagaalami jiray baadiyaha hab loo xaliyaa jiray waqtigan hadda aan wada hadlayno Soomaaliya meel aan dagaal macnaha qabiil aan la isku haysan way ka yartaa way aad ay u yartaa waxa marka anagu aan target gareynaynaa oo eegaynaa waxay tahay war amayba macquul tahay inaan dib ugu laabano dhaqankeena xagee ka yimid in adiguna aad reer hebel noqoto haday xataa reer hebel hala noqdo ma xume maxaa keenay in la isku dilo oo la isku faquuqo taas waxaan u maleynaa siyaasiyiintan hadda qof walba eedeynayo de siyaasiyiintu dhaqankii ka soo jeedaan siyaasiyiintu cirka kama imaan waxay ka soo dhex maartay yimaadeen dhaqankeenaas qaldan marna cunsuriyiinta cunsur isku nahay marna isku dilka aan sameynayno marka ninkii maartay siyaasiga markii oppositionkii siyaasadda fuulo ayuu wuxuu isticmaalayaa amaba intuu sabab fuulinba ayuu isticmaalayaa qabyaaladuna dhaqankeena ugu jirtaa marka waxaan u jeclaan lahaa in discussionku ama wada hadalku uu ka fogaado ka dheeraado siyaasiyiinta ka dheeraado gudaha dib aan ugu laabano dhaqankii 500 soo daashaday oo ah reer hebel halkaan anaa ka landheereysan halkaan anaa degaa adigu halkaas degtaa inaan biyaha isku leyno haddana sidii hadda ceelashiya wax isku bedeleen dawlad goboleedyo oo markaas aad ogtahay oo dawlad goboleed uu baaba qabiil hogaaminayo marka waxa weeye waxaan jeclaan lahaa in xoolaha discussionku oo sanaga aadin iscafiskuna ulajeedka aan ka leenahay professorku waa ka dhawaajiyay macquul maahan ulajeedka aan ka leenahay waxa weeye
وديرجلين لسكو ديرجلينيو ولا القف ولا الكا الصوماليين دبعته ما وجيستها ها ولا العفس ويديسو ولا القف صوماليين دبعته ما كوجيستها ولا العفي markaan taa markaa iskugu dhiirigelino diinteena islaamkuna farayso markaasan waxaan u gudbi karnaa bal inaan soo fagno hadana inaan markaas ballaarino ama qabiiladii la isu geeyo ama culumadii la isu geeyo dhin walba la iska haystaa inanka hadeeta ka dhawaajinaya xaasidnimada runtii cabdixafiid waa runtii absolutely waa runtiis sababtu waxay tahay hadda wadankii waliba waxaa ku soo batay oo qabyaaladiiba nooga daranba hadda dhibaato nagu haya qof kasta ee wanaag wada maaragtay wanaag wadankii u wada sida adigoo kale hadda barnaamijkan maalin kasta qabanaya arrimaha bulshada ugu adeegaya ummadda waxaa soo baxday ummad farqaha ku dhagta oo lugaha ku dhagta oo xaasida oo maaragtay dhibaato u geysata annagaas hadda luuqadaas keliya cafiska wadnaa hataa faka weyni marka waxa waaye waxaa la rabaa in la fahmo annaga culturekeena iyo habka aan u dhaqanno iyo habkaan wax isugu sheegno iyo habkaan isu waanino iyo habkaan u sheekaysano iyo habkaan conflict resolutionka u samayno ama heshiiska u samayno inaan dib ugu laabanaan u baahannahay oo aan ka doodno at least ka doodno oo aan dhahno reer saanaan samayn jirnaa maxaan ka bedeli karnaa waa gartay haddii aan ka dhammaano saad sheegtayba nimankaa siyaasiyiinta ah oo aan maxayto dib ugu noqono mawduuceena qaybihiisa kale hadaayo waxaan kaa dhex jiray adigoo ka hadlaya iscunsuriyeynta iyo faquuqa iyo qoysas ayagu sheegta inay ayagu dadka kale ka fiican yihiin waa laandheerayaal waa lafta geela badha waa ilmo faartahuruse waa reesar ayaama cuna waa ilmo tuuryaro bidaaye dadka kale ay cunsuriyaan waxay dhahaan anagu waa waaweynahay kuwaasu ayagu dhibka qayb intee la egayay darawal ka yihiin bal isleeda waxaan anigu aaminsanahay midaas waaba midda saldhigga u ah oo markii la cabiro dhaqankeena Soomaaliyeed la cabiro oo la cabiro qabyaaladda iyo isburburinta iyo isxasadka iyo anagoon aqoonin in aan ka wada hadalno ka wada shaqeyno waxyaabaha aan isaga mid ka nahay waxa aan ku kala duwanahay faraha la galayna waa number 1 ay ka tahay faquuqaas wax maskaxda bini aadankana qaadan karana ma ahan in qof Soomaaliyeed ee walaalka ah ee dhan walba kala mid ah in lagu baro oo lagu abaabiyo oo ilaa iyo markaad yareed lagu abaabinayo qofkaas inuu ka liito Yurubtaan markii la soo galay marka waxyaabaha marka Soomaalida hurdada igu kacayaan waxay tahay dad wadankan hadda aan joognay Finland waa dad Christian ah waa dad cadaan ah waa dad aanan maartay wax haba yaraatee color ah ama wax aan wadaagnaa ay jisan jireen haddana waxa la yiri soo dhawow qofkii kalarkaaga wax ka sheegana waxa waaye waa dacweyn kartaa qofkii diintaada wax ka sheega waa dacweyn kartaa qofkii dadnimadaada iyo meesha ka soo jeeday Soomaalinimadaada wax ka sheegana waa dacweyn kartaa waxa la ilaalinayaa qalbi adigoo qaxooti ku ah ya qalbigaagi waxa laga ilaalinayaa in xanafu soo gaarto ah inaad ka liidato dadka kaleeto anagiina marka intaasoo 100 oo sano ayaan dad Soomaaliyeed la daba taaganahay inay naga liitaan ama anagu aan ka liidano dadka kaleeto macnaha bal waad dareemi kartaa marka meesha ay wax noo marayaan taa markii laga soo gudbo xataa kuwaan xataa isku sheegaya inay yihiin laandheerayaasha oo libaaxyada ah oo ayagu khatarta ah ayaga isdeyn waayay markaasay laf isu gumaadeen laf yaa la isu gumaaday marka la sheekaysanayana anigoo reer hebel wada og tahay qaybaha ay ka leedahay ummadda Soomaaliyeed dhexdooda ay sida isugu faanaan isugu goodiyaan marka walaal waxaad moodaa inay tahay jahli iyo qab isku darsan labadaas waxa ay isugu ka darsoomaan iyo awood haday isugu ka darsoontana waxa waaye waxa ku hoos joogana waa kugu agbaaba'ayaan adiguna waa isbaabi'inaysaa waana mid hadda wadankeena ka muuqata marka mar kasta oo laga hadlayo arrimaha bulshada mar kasta oo la sheegay cafis laga hadlayo mar kasta oo dibahasheen laga hadlayo waxaan jeclaan lahaa in Soomaalidu ay inta muraayada hor istaagaan oo isku fiiriyaan ay yiraahdaan war annaga horta maxaa dhaqankeena ka qaldan taa markii su'aashaas la weydiiyo la qodobaysto inta public debate la sugiyo laga sheekaysto markaas waaye marka la yiraahdo okay hadda waan aragnay waxa naga qaldan haddaan ka warrama intaan jawi cafis intaan abuurno aan wixii dhibaatadii aanan wax iska sii karin ama diyadii aanan iska bixi karin wixii aan iska cafino dhibkii soo dhacay laakiin waxa hadda yaala ama guri la kala haysto ahaato ama waxyaabahaasna aan hadda ka doodno hadda maartay la isu celiyo waxa naga qaldan waa wax aad iyo aad u tiro badan maalin kastana qaladka waxaan saarnaa siyaasiyiin war siyaasiyiintu waa Soomaali waa adigaan geela la joogay banaanka joogay madax noqdo kaleeto waay ama adigaan gurigaaga joogay madax noqdo kaleeto waay qabyaaladan iyo isfaquuqan iyo dibkan Soomaalida
na haysta waa culturekeena aan Soomaaliyay runta isu sheegno annagoo deganoon wada dagaalina aan arrinkaas dib ugu laabano ka hadalno maadaama aan hadda aad ogtihiin ummadan Soomaaliyeed ee maanta shaqadii wadanka haya maaragtay shaqadii la qabanayay dhaqankeena ahayd oo hadduu kabatalayo iyo hadduu wax tumayo iyo hadduu wax qabanayo hadduu wax qorayo dadkii shaqada nagu hayay korka noo hayay haddii aan idhaahno waa naga liidataa xageen u soconaa waa gartay weli waxaad ka hadashay cadaalad darro isfaquuqid iyo istakoorid iyo xasad dhexdeena ka yaala waxaadna tiri waa dhaqankeena baashu berigii miyiga la joogo xoolaha iyo daaqa la isku haysan jiray geelana la kala dhici jiray xal baa loo heli jiro geed hoostiis baa inta la fariistaa xoogaa awra la kala qaadan jiray nabadna waa lagu wada noolaan jiray baashu markii magaalada timid oo reer magaal noqotay bay tusbax go-ay noqotay baa laleeyahay maxaa ka leedahay arrinta waxaan ka iraahdo taas waa kasoo horjeedaa taas example yaraan ku siinayaa waqti yar haddaad siiso soo dhow shan nin ayaa waxay isku dishay ceel biyahay isku dileen shantiina markay ceelka biyaha isku dileen sida odayaasheena wax u xaliyaan ku sheegaya shantiina inay u yeereen waxaa la yiri reer hebel meeqa laga dilay saddex reer hebelna meeqa laga dilay labo hayee laba isu tuura laba waa la isu tuura maxaa soo haray hal inta la isu yimid oo meeshii la fariistaa yiri halka diyadiisa hala bixiyo marka reer hebel halka hala ay ku maqan diyadiina bixiya sida xoolihii oo kale diyadii la bixiyay meeshii shaahi lagu cabay waa lagu kala tagay la isma weydiin hal waxa marka la door bidi karaa marka aad doonayso inuu soo dhibaatadii kugu soo laaban war meeqa la iska dilay shan soo la iskama dilin laba intii la isu tuuri lahaa bal horta maxaa la isku dilay soo biyo maaha waxa la isku dilay dee hala qoto ceel kaleeto oo mid kale hala qoto si berri haddana biyo kale la isugu dilay la isweydiin maayo habka xataa aan conflict resolutionka waxa la yiraahdo aan u samayno ayaa qaldan habka loo dooda ayaa qaldan habka loo fariisto ayaa qaldan oday doonaya inuu maanta hilib cuno oo inta la isu yimaado maaragtay la yiraahdo diyaha la kala qaato war diyaha waxa kuma maaragtay soof kuma noqdaan dib u baa ku sii kordha waayo ninkii wax dilay ama gabadhii kufsaday ama ninkii dilay yaa diye inta wax la bixiyaa hawshiisiina haddana meel ka wada ilaa dadaa u fadhiyo qabiila u fadhiyo ka bixinaya wixii maalin kasta qorayo wada dadkii u laynaya marka waxaas dhaqan qaldan waaye ma aha magaalo wax yimid waa wax weligood iyo allahooda daba taagnaa waaye habka aan wax u qabano iyo habka aan wax u samayno ayaa qaldan marka waa in dib loogu noqdaa dhaqankii aniga taas aaminsana waa hagaag waxaan jecelahay dhowaan inaan adiga iyo daawadayaashaba hees arrimahan burburka iyo dhibaatada dadkii dalka soo gaaray ka turjumaysa wixii shalay la ahaan jiray iyo waxa berita la noqonaysa iyo la noqon doono iyo in la helo kacdoon shacab oo isbedel doon ah oo reeryada ama rarka iska rogo in la helo inay daruuri tahay baan dhowaan idiin soo dayn doonaa laakiin hal su-aal aan ku weydiiyo daawadayaasha khaalad ku jirana ha iga raalli aadaan wax yar mithaal baan ku siinayaa nin hebel ama maalan aniga ama adigoo kale baa waxaa laga yaabaa adeerkeen inuu gacan ku dhiig leeyahay ummad Soomaaliyeed dhibaatadooda uu ka qayb qaatay dhiigooda daadanaya laakiin anigu ma raba adeerka in la taabto in la soo qaado ma rabo xumaantiisa iyo dhibkiisa iyo dhiiggu daashay waxaan ku faraxsanahay inaan jeebka gashto ku xaragoodo maadaama aan isku xaafad yaranahay laakiin kuwiina farta ayaan ku fiiqayaa marka haddaan anigii aanan rabin xalkii inaan ka qayb qaato oo kii aniga ila dhashay ee dhiigga Soomaaliyeed ee shariifka daadiyay aan qarsanayo sidee bay xal iyo cadaalad u heli kartaa ummadani waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan waana marqaatigeediina waa haynaa dad waxaa hadda wadankii dhex jooga dad soo laayay dad dhibaato wadanka u soo geystay yaa dhex ku nool wadanka dhexdiisa oo waliba si fiican loo qadariyaa oo loo maamuusa yaa qadariya qabiilkoodii yaa qadariya ama qabiilkoodii yaa xoog leh haddii marka aad dhanka kalena u dhigto war qabiilkan adigu ninkan aad daba taagan tahay oo marna difaacayso marna aad baarlamaanka ku darsanayso marna siyaasiga ku ah adiga shakhsiga ah ee Soomaaliga ah ee miskiinka ah ee gurigaaga iska jooga bal waxa aad ka helayso ku soo celinaya adiga maxay tahay taas xataa Soomaalidu isma weydiiso waxyaabaha qaldan ay ka mid tahay maalin kasta waxaa laga hadlaa reer hebel intaasoo kursiyaa la siiyey reer hebel intaasoo maaragtay war kursigan lagu siinayo adiga ee aad siinayso ninkan ee qabiilka kugu ah ee meesha kuu fariisanaya horta muxuu kugu soo celin isweydiimaysid taasna waxa waaye waa arrin jira waana midda uguba dhibka badan waayo muxuu yahaba maxaad adigu ka hadlaysaaba nimankan hadda maaragtay dadka dilaya dee kuwa hadda baadiyaha xataa isku dilaya dhaqan ahaan kuwa baadiyaha xataa dadka ku dilaya sababta ay keenayso markii qof dilo in la iska aarsaday qofkii kale haddana loo soo aaray haddana reer hebel oo nin aan waxba iska ogeyn meel iska maraya la soo dilo
oo loo dilo nin oo waa la dilay 10 sano ka hor reer hebel laga dilay dee inaadeer dhaqankaasu dhaqan wanaagsan ma aha marka waxa waaye waa sidaad sheegaysa kacdoon waxaan u baahannahay na fahamsiiya annaga inta aan iskaga midka nahay ayaa ka badan inta aan ku kala duwannahay Soomaaliya haddaan nahay adduunida ma jirto waddan nala mid ah dad isku kalar diina isku dhaqana isku afa isku carafa isku socda wax kasta isaga mid ah ayaa nahay sidaas darteed haddana waxaan keenay inaan qabiilkii inta hore soo dhigano aniga ninkaana imatalaya ama halkaana imatalaya markaasaan hadda dowlad goboleedyada qabiilaha waa wax iska cadiya wey waa la yaqaanaa qabiilada dowlad goboleedyada qabiilada mogta marka taasna maxay keeni kartaa waxay keeni kartaa dhibkay dibna ugu celin kartaa anuu dowlad goboleed kama soo horjeedo laakiin waxaan ka hadlayaa inaadeer Soomaaliya ma hagaagayso inta aynaan ku laaban waa inaan dhaqankeena ku laabanaa waa inaan ka doodnaa sidaan haddaba uga doodayno waa inaan dib uga fakarnaa sidaan u sixi lahayn qaladkii marka qalday waa hore weliba taasna dhalinyarada ayaa looga baahan yahay inay mustaqbalkooda gacanta ku qabsadaan oo kala wareegaan maaragtay talada inay la wareegaan hadda for example cabdixafiidow haddii la yidhaahdo waxbaa lasoo dooranaya doorashaa la qabanaya for example doorashadii dadbanayd waad xasuusataa waxaa la isugu yeeray odayaal war ma ii sheegi kartaa wiilka 30 sano jira ee jaamacadda ka baxay sababta loogu yeeri waayo isagu wuxuu dooro waayo oday waxna aan qorin waxna aan aqrin inta la soo fariisiyo asaga go'aanka gaaray ma ii sheegi karaa xagee dhaqankaasi nooga yid yaa noo sameeyay ma la isweydiiyaa sababta 24 years old oo aba 30 sano wiil jira ee wax bartay ee jaamiciya ee dhalinyarada ee mustaqbalkiisa ka horeeyo oo advance oo si fiican u yaqaan sida adduunyada hadda looga nool yahay wax loo weydiin la ayo wuxuu dooran la ayo qof soo saari la ayo miiskii u saari maxay tahay oo maalin kasta aan 500 sano odayaal daba taaganahay وهجاج أد باو مع سنتاي أن هلكا كويرة جورجيا خلقت تلفونات فرصة بانسينيا هدي إلهي هذا لكن مركو هران أودي إن كذا سوق هذا فنان أحمد رستا يوليبا نمعان هلا داو شو عن بقى الإنسان وبقى الكهف وكليا أبو يقرأ ويقال في
maqlayseen heestaas wadaniga ah oo ka turjumaysa soomaalidu waxay berigii hore ahaan jirtay maanta meesha ay marayso ceebaheeda iyo foolxumadeeda iyo inaysan waxaanu ahaanayn wax joogto ah oo weligood sidaa ummadda ugu jirayso ee laga bixi doono sabanada foosha xun oo soomaali soo marayna kuwo wanaagsan oo horumar leh looga gudbi doono fanaan axmed raste iyo fanaan nimcaan hilaac ayuu ahaa labadoodaba aad baan ugu mahad celinaynaa waa hagaag waxaanu heesta idinkaga xirnay muuqaalka aan idiin tusinin dhaguhu markay waxa maqlaan iyo muuqaalku markuu la socdo muuqaalku dadka nuxurka inuu mararka qaarkood hareer mariyaa laga yaabaa haddaan codku si fiican idiin soo gaarin karaa la ahaada si kastaba ahaato oo weli waa ay maqashaa u malaynaa cabdixafid haddaad heestaa maqashay ama horey u maqashay maxaa kaaga baxay heestaas waan dhegaystay si fiican ayaanan u dhegaystay macnaa hilaacna kolley waad ogtihiinoo wuxuu ka mid yahay tiimka cafis u ololeeya ayuu ka mid yahay laftarkiisu marka waana waa hees runtii aad u wanaagsan waxyaabaha u baahan in maaragtay fanaaniinta iyo wariyaasha iyo culummadu iska kaashadaan waxa waaye in ay dadka lagu wacyigeliyo arrimaha positiveka ah ee wanaagga ah waana sababta aan u bilownay barnaamijkan cafis aan u bilownay ulajeedkuna uu yahay in waxyaabaha wanaagga ah in isaga midka nahay maaragtay na heshiisiin kara sukaana keeni kara inaan shaashadaha geyno inaan ka hadalno inaan ku geeraarno inaan ka gabayno inaan isku wacyigelino diinta islaamkana dee cafiska waxay ka tiri cid loo sheegayo male qof walba ogyaha 14 aayadood nabigeena calayhi salaatu wasalaam kusoo dejiyey marka waxa waaye in arrinkaas aad iyo aad iyo aad xil laysaga saaro oo waxaan doonaynaa ummadda soomaaliyeed aan fahanno kuma jiri karno inaan maalin kasta is-eedayno faraha isku taagno isfaquuqno maalin kasta kiinoo is-eedayno waxaa wanaagsan inaan dib ugu laabanno oo aan maaragtay waxa wanaagana isfarno ee haddana hor yaalla arrinkeenuna uu noo ahaado war soomaaliya anagu soomaali ayaan nahay soomaalinimadaasana deeqda naga soo harta dalku waa nagu filan yahay xooluhu waa nagu filan yihin dalka noo jooga aan ka gudubna min jeclaysiga iyo cadaalad darrada iyo qabyaalada iyo faquuqa aan ka gudubno aan jawi cafis intaa abuurno aan iscafino kadibna aan ka socono hor uga socono waa waxyaabaha messajka aan doonayno inay gudbiyaan culummada iyo wariyaasha iyo maaragtay fanaaniinta intaba waa hagaag haddaay waxaad ka dhawaajisay inay jirto hanti la kala haysto mararka qaarkood oo dad guryahoodii dad kale ay ku jiraan maalmo dhowd waxaan ka aragnay tv-ga universal qof gurigiisii qof kale ka haystay oo farta ka saaray miftaaxuu yidhi walaalow qaado igana raalli ahow intaan kaa deganaa miftaaxaagiina la wareeg gurigaagiina uu ku bannaan yahay sidaas oo kale in maaragtay bulshadu ay u garawsato oo waxay iska haystaan ay siiyaan oon la iska argoosanin oo aan dhiig hor la daadina iyo dhibaato iyo colaad hor leh muhiimad intee laeg bay leedahay waa arrinta ugu muhiimsan waa midaas waana la weydiiyaa su-aashaas aad iyo aad nala weydiiyaa waxay dadkii qararka uleeyihiin aniga nin gurigayga iga haysta sideen u cafiyaa nin walaalkay dale sideen u cafiyaa annagana haddee ulajeedka aan ka leenahay ma aha ninka guriga kaa haysta inaad u cafiso haddii aad doonayso waaye annaga waxa waaye qofka shaksigaa ee doonaya inuu qof kale iska cafiyo ama qof kale walaalkiisa cafis weydiiso ayaa waxaan siinaynaa inaan jaanis inuu ummadda soomaaliyeed la wadaago oo aan maaragtay bandhigii keenno maalinta cafiska uu soo baxo yimaado meelaha cafiska lagu qabanayo yimaado tviyadii iyo raadiyaashii iyo social mediadii yimaado oo cafiskii ama weydiisto ama bixiyo hortaas waa midda waxa ulajeedka dhan cafiska laga leeyahay waa sax way jirtaa annaga xataa dad hadda waxaa jira nala soo xiriiray oo doonaya oo waqti xaadirkaanba diyaarno oon doonayno barnaamij ka samayno guryo iska haystay 20 sano ka hor muddo 20 sano ah haddana doonaya inay maaragtay cafisna weydiisto dadkeena guryahooda u celin weliba waxaa farxa leh cabdixafiid oo wiilka guriga laga haystay ee hadda weliba maaragtay diyaarka u ah inuu cafiskii aqbalo wuxuu yidhi wax alaalay waxaan kama jiro walaalkay hadduuba gurigii iisoo cafinaya cafiskiina wuu iga helayaa maaragtay isaguna cafiskii marka waa arrimahaan doonayn inaan shaashadaha keenno waaye sideed laysugu daydo bulshadii ay bulsho isbedesho u noqoto dhallinyaradina la tuso dadkani soomaaliya inay yihiinan wax haba yaraatee dhib ah oo maaragtay waxay ku kala duwan aysan jirinin dib maaragtay waxay rabaa dhex dhigaan ama gumaysta hadda dhex dhigo
ama qof kale ha dhex dhigo ama qof kasta noo sameeya dhibkan inaan ka gudubno qabyaaladda oo nahagsaday waxa waaye taas waa mid arba inaan ku wacyigelino ummadda وهاك هذا سو كوبا dad badan baa khadka telefoon ku jira laba su'aalood aan ku weydiiyo cafis ilaahay ka shukoo adaa sabab u ahaa inuu hana qaado oo abuurmo oo gundhig u yeesho meelo badan baa lagu qabtaa bisha July dhamaadkeeda dalka gudihiisa aan arkaynay ilaa meeqa meelood baa tagtay oo ama tiimka idinla shaqeeya ay tageen dhanka kale cafis ma wax adiga iyo group gaar ah leedihiin baa mise waa hanti ummadda Soomaaliyeed ay leedahay meel kasoo joogto waxaan aad ugu faraxsanahay inaad su-aashaas weydiisay horta cafis aan bilaabo laakiin anigu kaligay kamaan shaqaynin kamana shaqayn karin oo waad ogtahay kubanaankii isu soo baxday 2019 hadda coronavirus la qabtay waad ogtahay lagu qabtay gobollo maartay Muqdisho lagu qabtay Nairobi lagu qabtay cafis waxa iskale ummadda Soomaaliyeed ayaa iskale cafis waxa sameeyay ummad Soomaaliyeed samaysay ummad Soomaaliyeed maal gashata ayagaana qabsada group gooni ah oo leh ma jiro hadda ku sheegaya dadka kama shaqay karaan ba 14 magaalo hal group kuma qaban karo ayagoo maaragtay waliba aysan daarta mashruuc ahayn oo dadabada ka taagnayn ma ku qaban karaan dadka Soomaaliyeed ayaa samaysta marka waxaan ku cadeynayaa aan ku sheegayaa oo ku dhaqana in anagu waa tagay gobol walba oo Soomaaliya ku yaala oo aanan tagin waa yar yahay gaar ahaan 6 dawlad goboleed magaalada madaxdooda kulligoodna waxa waaye waan u geerina ayaga la harayo samaysanay waad ogtahay oo Kismaayo waxa isugu soo baxay 2019 dhowr iyo 10 kun oo qof meesha stadiumka anigu ma joogin fiilanan joogay dadka sameeyay waa reer Kismaayo baydhabo waa lagu sameeyay dadka sameeyay waa reer baydhabo ay ahaayeen Dhuusamareeb baa lagu sameeyay dadka sameeyay reer Dhuusamareeb ahaayeen reer Muqdisho beerta nabadda isugu soo baxeen dadkaas oo dhan marka hal qof iyo laba qof iyo saddex qof dad isu keeni karaan ma aha dadku jacayl ay u qabaan kaliya in lagu hago oo dawladdiina intay serious u qaadato ay arrinkaas Soomaalidu bilaabatay ee sharciyadu ay samaysatay ee shacabkoodu samaysteen oo u hiilayeen oo ay rabaan in inta ka faa'iideystaan xataa siyaasiyan ay la qabtaan xataa maaragtay ayaa fiican marka waxa waaye runtii la qabtaan oo wasaaradda faafinta kala sibacan hadda wala shaqeyn jirta arrinkaas xataa marka waxa waaye arrinkaas waxa weeye Soomaaliya iskale groupna ma lahan shakhsina ma lahan qof shakhsiya oo sheegan kara ma san tahay jaalo wariyaashu aad bay hadal badan yihiin marka inaan ka xoogo mararka qaarkood waagaag khaladka telefoonada cabaan aan haynay baa siinaya fursad wari raali noqo waagaag laynka telefoonka aan gudubno raali ahaado waan ku dheeraynay soo dhawaada halo assalaamu calaykum cabdixafiis su'aalaha rab inaan weydiiyo waa igu jirtay weydii brada weydii ka raali noqo weydii dhibaato ma lahan waxaan rabay su'aashaan rabay inaan weydiiyo iscaafinta 2017 Cabdullaahi Yuusuf xilligiis iscaafina magaalada Muqdisho lagu qabtay maashi la dhahay gaadiidka booliska ayadoon lagu heshiinaa lagu kala tegay oo awalna shirar hore ay ka horeeyeen xilligii Sheekh Sharaf iyo xilligii Xasan Sheekh Maxamuudna waxay iscaafina ama shirara oo dib u heshiisay lama qabo intaan dalka xilligii Xasan Sheekh Maxamuud dhowr shir baa la qabtay magaalada Muqdisho oo dib u heshiin ku saabsan inta marka maxaa sababay xilligan oo maanta oo jooga محمد عبد الله فرماجو أو جوج إن لجوس أو هلي حكي أنا مركز إن حلقان يحلقان سلجوسو آدي عارفين تلبدي مدحونا قدعيت أنا جوا سؤال في عوا خدك كبحين مركب محاك اللي حيا لا ذا حريرك كل حيا عبد الله يوسف إيو فرماجو يمكن جوجا يا أنت كهذا إنه حفظك محاسك قصي عمي محاسك قصي لبدي مدحونا تحت كدر حسن إيه شرفنا لو واي عارفين يهشيسين labadaas madaxweyne ku soo aadi asafin iyo siishin maxaa sababa faqriga u dhaxeeya marka oo nimankan looga waayay markaan kalena loo hela marka ma yaad eedaynta u soo jeedinaysaa waan ku fahmi kari lahayn waxaan macnaha su'aashaas asaan rabaa inaan weydiiyo okay ku yara jir walaal wali waa maqlaysaa berigii Cabdullaahi Yuusuf waxaa la qabtay arrintaas dib u heshiisiin mirama dhalin buu yiri iminka farmaajo jooga Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif oo dalka u shaqeeyna waagooda waxaan lagama hadli jirnin xagee bay iska qaban laadahay waxa waaye walaal horta Xasan Sheekh soo jooga ayaan bilaabnay barnaamijkan inaan u campaign garayno anigu yaan tababaraa wadankan Finland ka tagay wadankan ku laabtaa ilaa 7 sano tababaray
marka wariyaasha iyo qabanqaabada iyo sida barnaamijkan loo sameynayana waxa waaye waxay bilaabatay 2016 ay bilaabatay 2017kiina furitaankii waxaa lagu sameeyey magaalo Finland ku taalo Turku la yiraahdo haddaba aan kala hadlayo joogo marka wax siyaasad quseeya ma ahan sabab aan ugu aadinayna ma jirto barnaamijkana waa kacdoon shacabkuna wataan wax maaragtay aan la sugaynay inuu farmaajo yimaado ama aan markii hore quseeya Cabdullaahi Yuusuf ma ahan waa wax dhalinyaro wata marka waxa waaye xoogaa waxaad moodaa waxyaabaha lagu batay ay ka mid tahay waana fahmi karaa in lagu wareero barnaamijkan muxuu yahay yaa wada xaggu ka socdaa yuu yaa ka wadaa maxaa hadda loogu aadiyay maxuu madaxweynuhu u joogaa maxuusan u joogin waxaas waxa waaye aad iyo aad waxyaabaha xoogaa aad mooday in la daashadeen waaye ka dambeeya ama ulajeed ka dambeeya oo aan ahayn in wariyaasha Soomaaliyeed ay ummadda Soomaaliyeed ku wacyigeliyaan barnaamijkan xafis waaye walaal wax kale oo siyaasadoo ka dambaysa ama ulajeed kale laga leeyahay ama may jirto marka waqtiga u baa ku soo aaday hagaag wali waa mahadsantahay hay walaal ma qalacday waa mahadsantahay aad baad noo mahadsantahay inaad su-aashaas weydiisid ayna maaragtay jawaab ku qancisa oo wariyo wali ku siiyo waa mahadsantahay aad laftigaa u qayb qaadashadaada waa hagaag qad kale u gudubno halo waa hagaag qofkaas waxaan u maleynaya maqlayna iminku maqlaya halo walaal soo dhawow waa ku maqlaa walaal ay walaal maxaad jeceshaa inaad weli weydiisid waa maxayse ra'yigaagu ra'yigayga iyo su-aal labadaba waa qabaa magacaada marka hore magaca walaal magacaygu waa Cabdullaahi Rawje hay Cabdullaahi soo dhawow walaal waa dhawahay waa mahadsantahay Cabdi Xafiid marka ugu horeysa horta waxa weeye ra'yigayga waxa weeye horta waxa wax cafin kara qofka laga galay laba qof oo wax kala galay oo wax kala tirsanaya ama dad wax kala galay baa is cafin kara tusaale ahaan qof ama naftiisa wax loo geysto la dhaawacay oo qofkii dhaawacay cafis ka dalbanaya ama qofkaas ay ka soo godo inuu qofkii cafiyo ama dad hanti kala haysta oo qofkii hantidii ka haystay u hibeeya ama haddii ilaahay ku idmaayo u hibeeya ama kiyo isgarto oo intuu hantidii mustacmalana cafis ka dalbado qofkii hantidiisiina cafiya horta cafidu sidaas ay ku imaan kartaa aniga aragtida aan qabo Soomaaliya wax badan baa ka dhacay dhibaato badan baa ka dhacday anigu waxaan u soo taagnaa dad badan oo hantida la kala haysto hanti la kala haystay ma garanaysaa markii la damcay in la kala celiyo lacag ku xujeeyay oo waliba lacagta markay kala qaadanayeen iyagu siday rabeen u qortay warqadii tusaale ahaan hal warqad baan garanayaa qof warqad hanti 30 sano isticmaalaya guryo deegaana xamar dhexdeeda ka dhacday markuu hantida celinayay dhowr bilood ka hor warqadii wuxuu ku qortay lacagtii baad ahayd oo qaadanayay xushmad qofkii kalena kama hadli karin yani waxaasuna waa dulmi ka dhacay waxaas cafis ma noqon karto taas markaan taa uga soo gudbo ra'yigaygu waxa weeye dadka wax ka go'i karaanin oo hawsha ka ololayn karaa qof iyo laba maaha waxa weeye tusaale ahaan aniga markaan ku ogahay walaalkay ama in adeerkay inuu haysto qofka wax ka haystay waa inaan raadiyaa ama qofka uu dhib u geystay waa inaan raadiyaa qofka kana soo qabta aan qabashadiisa leeyahay aan cafis sidaa ku dalbaa haddii qofka walaalkay ay ka suurtoobi weydo laakiin commonly haddii qof aan dambiba gelin uu ololeeyo wallaahi anigu ma garan karo walaalo si u suurtoobayso aniga iyo adigoo kale oo Cabdixakiin oo aan Cabdixafiid oo aan weligay waxba iga gelin haddaad aan dhaho Cabdixafiid anigu taan meel isugu naan cafis baan dakhla dalbayna dee waxba dambi igama aadan gelin labadeena ma nihin cafis waxa laga dalbayaa meel kasta wax ka waa runta saad u fahamtay waa sax weeye waxaan ka hadlaynaa dad hanti kala haysta ama dad islaayay ama dhibaato kala dhex gaartay laba qof oo isku dhimanin sida adiga iyo weli oo kale hadda halkan nala jooga iscafiya haddii la yidhaahdo macnihii iscafiskay ku ciyaaraysaa ama luminaysaa marka waa ku waafaqsanaya ra'yigaaga saliimkana waa kaaga mahadsanaya waxaa mar dhow nagu soo socota xayeysiinta global net laakiin aan qof kale fursad siiyo intaana weli ku noqonin halo asalaamu calaykum salaam walaal soo dhawow cabdixafiid way maqashaa si fiican inkastoon jeclaada kor dibnaha ugu dhaweysa telefonka okay bismillah alxamdulilah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdixafiid iyo weli xaashi weydin salaamay caawi barnaamijka laga hadlayaana waa aafaan waa waxa weeyaan waa waxay u baahan tahay qoys gurigaan cabdixafiid oo kasoo toostay ilaa iyo awowga maxamuud
warasadiisii jilibkaagii Soomaali oo dhan haddana siyaasi cid waliba cafiska way u baahan tahay 3 cisho ayaa la yiri lama aqbalayo salaadii iyo soonkii 3 labada qof oo Ilaahay caraq ku kala maqan ma fahanti Soomaalina way islaysay way isnacday way isxoogtay way isdulmiday waxa loo baahan yahay in la iscafiyo وعافسك ونقضى من نيادة ونقضى من سياسة اللغوة ونقضى مع إمك السومالي لأنه أكله وفي واحد كاري لا ضحي إنه يسترهده ولا ليال دولتي يو أود يو حمر هاي يعني يوم تحويني أها أيه يدكو خلطنا ولا يالو رحالي هذا ونعفيه إلهي وانا كينو هاي ما فهمت هذا هو حل لنا هو مقدس من نمر عافسك هو مهم ولا حاشي يعني الماء فتاه روسي سريع محمنة dadka in laga soo jeediyo karbaashka aad wadaan baa soo jeedinaya ma faanta cabdi marka waxa leedahay dadkii dhibaatada geystay waa inay ayagu marka hore cafis dalbadaan dadkana ay cafiyaan why not hadiidaya imika waxaad arkaysaa intaas oo qof oo madax imika Puntland oo kale intaas oo madaxweyne isbedeshay qof marka tagada laga qaado haduu yiraahdo walaalayaal hal la cafiyo maamul baan hayay ama kala ma samo walaalayaal hal la cafiyo waxay tilmaamaysaa inuu dadnimo leeyahay Umar bin Khattab markii Faris lagu duulayay wuxuu yiri carabtu waa kuwii islaysay ridadii moogtahay wuxuu yiri carab dadkii dad wada gumaysanaya dagaal ma gali karaan aan iscafino aan isxorayno marka guulaysta dhalinyaradiina qurbaha ku baratay ee tifiyada iyo media ka shaqeynaysa hogaankii waxa tiin mustaqbalka Soomaaliya niyadiinana Ilaahay kor ka dhigo cafiskana Ilaahay qulubtina way ku jirtaa oo waliba adigu sida naafada gooni maaragtay ugu ninka kula hadlayaabto waa Cabdi Xafiid Dool ma garatay سعيد دول واكو سلامي ساتاي marka sida abtimaarti aad naafada iyo dadka jilicsan ugu dadaashaan tifiyada iyo TV-gaaga iyo aduguba way ka mahad celinayna wali xaashina waxaan leenahay diga waday deeqalaad ka herqan doontaan waxaan kusoo gabagabanaya gaariya wuxuu yiri kugu dhimay oo ka dhimay waa xuq biteeriyadiisa ku foofay hungo waa sidaan ahay maantay dhanna heedha ima fiyooba tan dhintay iyo waa Soomaali وسيدي ووالله حق الله يدين بركاته عافيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هتسنتهاي سعيد دول بكم قاعدين وانين أرجعنا فكأة هل كان يعني أصدق يصدق nin oo laba nin oo labadoona aragna faa'iikiin ayaan barnaamij hadda ka hor uga qabanay markay gawaarida kasoo degteen baan ku yiri gacanta aan ku qabto gudaha ku soo geliyay way la kaftamay wuxuu yiri waxaad moodaysaa inaan dhalahay waa socon karaa iga leeyahay marka dibaan ka xasuustay ama Allah ku xifdiyo إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور إنها دبتها وقلبك إلهي كحرا كون سوليكم باغوتها وحاجات مرة قاركم dadka qabyaalad bay uga dhacaan dartooda waa taa dalkeena dadkeena burburtay وحاجات waliid hadaan adiga dib kugu soo noqdo khayr Allah ku siiyo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal aan isleeyahay hadaan weydiinin daawadayaasha xaqoodii maadan siinin adigana xaqaaga kuma siinin yaa diriirayooda heshiisiinaysaan oo caawa qoryo isla hor fadhiyaad ogtay adigu caawa wax heshiisiin mayno caawana waxaan kuu sheegay in maaragtay ulajeedkeenu yahay inaanaan dhibaatada korka ka dhayin oo guud u galno waxaa lagu yidhahdaa afka qalaad grassroots levelka hoose inaan galno sababta aan caawadan ugu soo celinayay dhaqanka iyo habkaan wuxuu xalli jirnay iyo faquuqa iyo waxyaabaha naga qaldan sidaan u eegi lahayn waxay tahay dagaalka maanta socda lama joojin karo ka bari imaanaya lama joojin karo ilaa la fahmo waxa horta koosgareeyay marka horeeto maxaa koosgareeyay dhaqanka qaldan ayaa koosgareeyay muxuu yahay dhaqanka qaldan ilaahay khayr siiyo Siciid Doole hadda nala hadlayay magaciisa waxa la yiraahdaa hadda asagiyaaba isku sheegayaba Siciid Doole ayaa la yiraahdaa in doolaniman ku tilmaana fiiriya anagu waxaan nahay dad isku tilmaama meesha aan nahay isku tilmaama xataa oo yiraahdo halkaas la adahay adigu halkaas dhibaatada ka socota inankii ka horeeyay taleefanka ku soo hadlayay baartay lahaa maartay dadkii shakhsi dadka dhibaato Soomaali isma haysato dadkii lahaa waxa aan ka hadlaynaa ma ahan Soomaaliya ay haysatay isma haysatay kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa waxay tahay war dhaqankeena ma ku jiraan waxyaabo niyadda naga dilaya anigaas maanta caawa programka qabanaya Cabdi Xafiid haddii
programkaaga aan idhaahdo niyo programkaaga boqolkiiba 90 aad iyo aad u wanaagsanaa laakiin 10 ayaa wax si ahayd 10kii aan ku dhegaynaa anagu ee 90ka kama hadalno anagu marka dhaqankeena wuxuu yahay inaan ka hadalno negative-ka iyo dhibaatada aan geysano iyo waxaan dhibaatada ayaan ka hadlaynaa waa inaan ka hadalnaa positive-ka xataa waxaan samayno waa inaan ka hadalnaa waa inaan isku guubaabinaa isku raacnaa anagu maxaan iskaga galnaa saddex waxyaabood aan isaga midnaa maxaan isaga midnaa diinta islaamka wada muslimaana wadankeena waa qurux badan waa isku raacsanahay wadamada dunida ugu fiican ku jirnaa waa isku raacsanahay dad isku dadno isku diin oo isku af waa isku raacsanahay intaas kaliya maxaan uga wada shaqayn laana maxaan ugu mashquulaynaa oday dhintay intaas sano ka hor oo carruurteedii iyo dhallinyaradeena ugu baaba'ayaan annagooba awoodna inaan soomaalinimadii iyo dadnimadeennii iyo wixeenii aan ka wada hadalno ayada ka wada shaqayno annagoo awoodna walaal maxaan ugu mashquulsannahay marka waxa waaye absolute waa sax maaragtay anagu waxaan heshiisiinaynaa su-aashaada haddaan dib ugu soo laabto hadalkiina waa igu dheeraada markaa qaalina ka noqo dib haddaan ugu soo laabto hadda qoryaha isu haysta waxay isugu haystaan waa grassroot wax ka yimid oo meel kore ka yimid meeshaas kore inaan abaarno oo sidaan ku abaaraynaa kaamiradan iyo shaashadeena iyo caqligeena iyo maskaxdeena ummadda ku wacyigelinayna haddii ilaha yidhahdo wagaag waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo adigu wariyaa tahay wariyaal fara badan baa tababartay dad badan baa barnaamijyada daawada anigu aan ka mid ahay waxaan aragnaa warbaahinta soomaalidu siday dadkeena iyo dalkeena uga waranto mararka qaarkood waxaa sida shakhsigan horta asuguma soomaaliba ceebtaaduu ka warramaya waxaa ka soo horeysa fadeexad iyo war degdeg ah haddaad warkaa degdega dib u dabageshid waxba kama hooseeyaan waa meel maran weeye dalkiisii iyo dadkiisii inuu weerar ku yahay baad moodaa oo mararka qaarkood uusan waxba xeerinaynin dadkaas warbaahinta ka shaqeeya xil intee la eg baa saaran maxaysan mudan yihiin inay qabtaan intay ku mashquuli lahaayeen ceebtooda iyo dhiigga daadanaya fadeexadeena iyadoo dhibaatadeena kale baan loo daala dhacayno والله عبد الحفيظ سؤاشاس waa su'aasha aan intaan maaragtay wax tababarayo 800 ay sii marayaan dhalinyarada tababarka u qabtay wadanka Soomaaliya goob aan arrinkaas uga hadlin ama aan ku tababarin ma jirto waa run dhibaatada ka jirta wadankeena waxay tahay wariyaasha keliyana maaha walaal wariyaasha keliya maaha wariyuhu hay'adu ka shaqeeyaa hay'adu laftirkeeda waa inay fahantaa wadaninimada iyo dadnimada iyo bini'aadanimada iyo waxyaabaha meelahan westernka laga yaqaan oo ah human rights iyo waxa waaye iyo freedom expressionka iyo waxaas waxa waa ma qorno way nagu adag tahay haba nagu adkaatee midda ugu muhiimsan ee la yaab kale waxay tahay marka laga hadlayo quruxdiisa iyo dadnimadiisa iyo dadka shacabka ah ee walaalaha ah ee maalin kasta nabadda sameeya cafiska ka hadla isu imaashada ka hadla runtii force ah oo aad iyo aad u wanaagsan dadka shaqadaha kuma aragno waxaan ku aragnaa madaxun la soo dhaweynayo oo dad u safan yihiin aeroboorada oo loo salaamayaan maanta oo dhan oo leeyahay hebel lagu soo dhaweeyay halkaas oo loo mashxaradayo oo loo maaragtay loo samaynayo baan aragnaa shaashadaha ku aragnaa ama qarax inta dhacay dadkii lagu meydkoodii iyo la soo daynayo ama laba qabiil hadda halkaas ku day libaax la yimid macnaha social media iyo wixiina waxay keeneen in dadkii wanaagga waday ee xataa inta yartaa samaynayay la daba dhigto maaragtay wariyaal dad isku sheegaya ay maaragtay daba dhigtaan oo caayaan oo aflagaadeeyaan oo wax oo xataa mararka qaar ku baadaan oo yiraahdaan haddaadan waxaas isiinin waxaan kaa qoraya ama kaa sheegaya ama kugu samaynaya waxaasna waa wax wadankeena ragaadiyey waayo oo dhibaato ku haya marka walaal arrinkaas waa arrin jira oo runtii dhibna ah in haddee laftirkeedana si loo gudbo way adag tahay waayo wadankeena waa burburay sida burburaba u burburaa dee wax kastaa u burburee dadka qabkoodii iyo dadnimadoodii iyo soomaalinimadoodii iyo maskaxdoodii oo dhanaa burburtay waxay u burburteen sidii dalkii u burburay u burbureen marka waxaas oo dhan kasoo kabasho ayay u baahan yihiin marka sababta ay wiilasha heesayeen ay uga hadlayeen arrinkaas wuxuu ahaa waa rajo inaan muujino oo aan ogaano inaan ka gudbayno insha allah haddii la yidhaahdo waa gartay gabagabadii iyo gulaanadkii waxaan jeclaa inaan fursad yara ku siiyo dhalinyaro soomaaliyeed oo fara badan ayaa ku daawanaysa dad waaweyn oo uu dhibayo dhibaatada dalka soomaaliya ragaadisay waayihii dambe ayaa daawanaya oo xasuusta maalmihii ay quruxda badnayd iyo horumarkeeda iyo wanaaggeedii xasuusta jecel inay mar helaan dalkoodii oo dhismay iyo ummadda soomaaliyeed oo nabad iyo karaamo iyo sharaf ku wada nool oo qoys iyo qabiil cid ka weyn aan jirinin balse qof kasta qadarin iyo xushmadda uu mudan yahay oo maaragtay lagu qadariyo jecel ayaa jira
gaar ahaan jiilka iminka soo barbaaray ee ku indha dilaacsaday qarax iyo dhiig daata iyo burcad iyo isbaaro iyo qabyaalad maxaad ku oran lahayd in 40 seconds waxaan ku oran lahaa waana ku faraxsanahay inaad hadalka ii bilowday oo aad ku bilowday dhalinyaro waddankan mustaqbalba haddii laga rabo oo laga rabo inuu hagaago wanaag ka yimaado dadka samayn kara ee gaarsiin kara waa dhalinyarada aniga midaasan aaminsanahay har iyo habeen waxaan marka doonayaa inaan dhalinyarada rag iyo dumarba inaad u istaagtaan inaad sidii dhalinyaradii u istaagtaan dalka ood kacdoon muujisaan fikirkiina iyo cududiina muujisaan adinkoon dagaal ku muujinaynin caqli iyo cilmi iyo maskax ku muujisaan ummadda soomaaliyeed wax dhex yaallaan ma jiraan waxay u baahan yihiin keliya in la xago oo la tuso weyga aan ugu talagalnay adduunyada kale sidaan ula qabsan lahayn middanna soo ragaasatay oo talada oday inta laga qaado lagu dhaqmo oo odagii soo doorta siyaasiga odagii ganacsadii loogu tago gabadhii la kubsado odagii loogu tago taas in laga gudbay dhalinyaradu gacanta ku dhigto ayaan jeclaan lahayn anagu marka waxaan dhalinyaro idin leeyahay Soomaaliyeed waxa la isku haystaa waa mustaqbalkiinii waaye waxa lagu murmayaa waa tiinii waaye waddankaas haddaan badbaadin ma badbaadiyo waxaan idinka rabnaa in meel kasta oo joogtaan intaad samaysaan kacdoon gacmaha isqabsataan u bilowdaan ummaddan inay wanaag iyo sharaf ku wada noolaadaan xabadaha iska dhigaan qoryaha iska dhigaan yiraahdaan anaga NF inaad tirahdaan waayo oo aad hadda dhalinyarada gaalkacyo aad u amaano markasta oo samaystay sheekh yiraahdo oo inta isu yimid labadii xuduudkii isu furay ee doonaya inay ka hortagaan odayaashan dagaalkan ay urinayaan maalin kasta waxaan dheelahaa dhalinyaradooy mustaqbalkiina gacanta ku qabsada waxaadna samaysaan jawi iscafi sameeya kadibna ka dooda sidii xal loo gaari lahaa waxaan kaloo jeclaan lahaa in dhalinyarada Charles la siiyo oo laga siiyo talada iyo hoggaanka dalkana Charles laga siiyo وهجاك intaas ayaan jecelahay inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijka caawa waana ku mahadsantahay wali arintaas aad ka dhawaajisay gaalkacyo waxaa sidoo kale xusid iyo sharaf mudan professor cabdulqaadir maxamed shirwac oo si fiican u taqaanaan inuu yiri ummadda Soomaaliyeed aadan bay ka timid anaguna reer ilmo aadan baan nahay qoys dhaamaana ma jiro taasina ay dhalisay jaamacad ku taala magaalada gaalkacyo ardaydu inaysan qoys iyo qabiil aysan wax isku weydiinin waxna ku xeerinin ee maxaa taqaanaa maxaad barato aan ka faa'iideysan karaa ay maaragtay isku xeeriyaan waa fikradda professor cabdulqaadir shirwac aad baan ugu mahadcelinaynaa isaga laftigiisu inkastoo san caawa nala jooginin weli waa ku mahadcelinayaa mar labaad allah ku karaameeya adiga iyo dhammaan walaalaha Soomaaliyeed ee dunida daafeeda jooga barnaamijkan daawanayay ummad iscafistay oo isku caloolfayo oo caafimaaday oo kacdoon dhab ah oo isbedel la timaada oo siyaasiyiintu ay ka baqaan maadaama shicibkii isku duuban aysan ka hor imaan karin oo ay diidayaan ayaa wax lagu bedeli karaa laakiin haddii annagoo aanu isku xirxirno qoysas iyo qolo iyo calamo iyo xaafado yar yara meeshaadan baad ku xirnaanaysaa waana lagaa danaysanayaa wiilkaad dhashayna taasuu dhaxlayaa marta aad ku jirtid bedel ayaad isbedelka aad doonaysa inaad aragtid adigu qayb ka noqo farsamada stuudiyaha caawa waxay la fadhiyo ustaad maxamed biibay dhammaan dadkana daawanaya way ku mahadsan yihiin kuwa telefoonada noo soo diray intaanu karoo kale dib ugu kulmi doono waa anigoo cabdixafiid maxamuud jaamaca waxaan idinkaga tegayaa guuliyo gobonnimo When I met the Ma'alim, straight away I knew that he is someone with a lot of credibility, with a lot of people that he managed to